Maalinta.com. horumarinta xuquuqda aadanaha taasoo ka muuqata waxqabadka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha inaan maanta halkan idinkula dabaaldego saxiixa dukumentiga muhiimka ah ee heshiiska caalamiga ee dhowrista xuquuqda ee carruurta mararka qaar dukumentiyada uma muuqdaan caalamiyan loo aqoonsan yahay carruurtuna ay yihiin carruurteennu waxaan rabnaa marka mas'uuliyaddaas qaran iyo mas'uuliyaddaas caalamiga ahba kuwa qaadi kara hogaamiyeyaal qaadi kara berri in ay ka soo baxaan inta maanta iyo hortaagan ee dhallinyarada ah ee carruurta iskuulladeena dhiganaysa waxaa ku jira hogaamiyeyaashii berri dalkan hogaamin lahaa oo ummaddan mas'uuliyaddeeda qaadi lahaa oo mas'uuliyadda caalamkana muxuu ahay qaadi lahaa. Somalia is coming together and Somalia is coming back to the community of nations. Somalia is taking its place in the community of nations. You are the future of Somalia, and that is true. I think one of you here, and I hope maybe one of the girls here, is going to be President of Somalia one day. Your Excellency, Mr. President, ministers, members. I actually didn't know that we built this. UNICEF looks forward to working with the government to implement this convention and work towards achieving key results on the protection of children's rights within the next 2 years. The next 2 years are actually key because as the government will be submitting the first progress report on the implementation of this convention. What's the time? Okay, good. Chelsea. Jose Mourinho. Maalinta.com.